daawadayaal ku soo dhawaada taariikhda beelweynta Biyamal ama Biimaal magaca saxda ah waa Jamaal sidoo kale loo yaqaano beesha Biyamal waa beelweyn ka tirsan qabiilada Soomaalida taasi oo juqraafi ahaan degta deegaano ku yaala Geeska Afrika beesha Biyamal intii aan baarayay taariikhda qabiilaadka Soomaaliyeed waa dadka ugu taariikhda fog qabiilaadka Soomaaliyeed markii gumaystayaashii reer Yurub ay ku soo duuleen mandaqada Geeska Afrika gaar ahaan dhulweynaha Soomaaliya beesha Biyamal waxa ay ku jirtay beelihii iska diiday gumaystayaashii reer Yurub si cadna uga soo horjeestay waxayna dagaal qaraar la galeen gumaystihii Talyaaniga iyo sidoo kale Ingiriiska 1876 taariikhdu markay ahayd ciidamo Biyamal ayaa si gaadma ku dilay barasaabkii loo oran jiray Saalim bin Yacquub ee suldaankii Sinsibar uga mas'uulka ahaa magaalada Marka iyo 40 askari oo uu watay barasaabka waxaana dilay rag ka soo jeeda beesha Biyamal oo diidana in gumaystihii Talyaaniga uu gacanta ku dhigo magaalada Marka oo caan ku ahayd baayac mushtarka waxa sidoo kale mararka qaar dhibaato ka dhex dhici jirtay carabtii deganeed magaalada Marka iyo beesha Biyamalku waxay si gaar ah uga soo horjeesteen in Talyaanigu ku fido dhulkooda laakiin carabtu waxay ahaayeen dad baayac mushtar ah mar walbana waxa ay dantooda ku jirtay inay heshiis iyo xiriir fiican la yeeshaan gumaystihii Talyaaniga Biyamalkuna waxay heshiiskaasi carabta iyo ajnabigaba u arkayeen mid dantooda iyo noloshooda khatar ku ah Biyamalku xeeladaha ay mar walba isticmaali jireen waxa ka mid ahaa in ay raashinka ka joojiyaan xeebaha Banaadir gaar ahaan magaalada Marka 1990kii bilowgii suldaankii cusba ee Sinsibar Suldaan Khalifa ayaa waxa uu dhulkii Banaadir ku wareejiyay Talyaaniga isagoo aan Soomaalida waxba kala tashan Soomaaliduna markii arrintaasi ogaadeen aad ayay uga xumaadeen 1890kii markii Talyaanigu uu ka soo degay xeebaha Banaadir markiiba hogaamiyaashii Biyamal waxay bilaabeen inay shirar degdeg ah ku kulmaan si ay uga tashadaan waxa uu damacsanaa gumaystihii reer Talyaani markii Talyaanigu ogaaday in Biyamal yahay qabiilka kaliya ee mucaaradnimadiisu midaysan tahay markiiba Talyaanigu waxa uu isku dayay sidii uu u kala qaybin lahaa Biyamal hase ahaatee way suurtageli weyday muddadii u dhaxaysay 1890 ilaa 1908 midnimadii Biyamal isma aysan bedelin wayna ku adkaatay Talyaanigu sidii uu magaalada Marka gacanta ugu dhigi lahaa balse markii la soo gaaray aakhirkii 1908 qaar ka mid ah hogaamiyaashii Biyamal waxa uu cadaatay in ay adag tahay in la sii wado dagaalkii lagula jiray gumaystaha Talyaaniga waxayna qaar ka mid ah isku raaceen in Talyaaniga lala shaqeeyo oo heshiis lala galo beesha Biyamal oo ka mid ah beelaha dega koonfurta dalka Soomaaliya waxa ay leedahay taariikh baaldahab kaga taala diiwaanka Soomaalida qarnigii 18aad ee taariikhda miilaadiga beesha Biyamal waxay ahayd beel ka tilmaaman beelaha kale ee dega koonfurta Soomaaliya waxa lagu xasuustaa halgankii dheeraa ee ay u soo gashay gumaysi la dirirkii gobolka Shabeellada Hoose markii uu socday dagaalkii u dhexeeyay gumaystayaashii Ingiriiska iyo halyeeygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa la soo wariyay in dagaalkaasi ay ka qayb qaateen beelo Soomaaliyeed oo tiro badan kuwaasi oo taageeray gumaystihii Ingiriiska laakiin beesha Biyamal weli lama soo tibin in ay ka qayb qaadatay ama ay garab istaagtay gumaystihii dhulka ku soo duulay waxa kale oo taariikhda lagu sheegay in beelo tiro badan ay dagaal la galeen sayidka hase ahaatee waxay taariikhdu xustay in Biyamal ay ka soo jeedeen rag taariikhda Soomaalida baaldahab ka galay isla markaana aad uga soo horjeestay gumaystayaashii reer Yurub muddo 14 sano ah gumaystaha Talyaaniga uma suurtoobin inay cagta soo dhigaan dhulka beelweyntu degto sababtoo ah isku duubnidii beesha iyo hogaamiyaashoodii oo u heelanaa difaaca gumaystaha Talyaaniga waxaana ugu horeeyay halgankaasi gumaysi la dirirka ahaa Allah u naxariistee macallin Ibrahim Qaasim Kabtoole Jibriil Macallin Barrow iyo rag kale oo odayaal ah oo beesha ka soo jeeda inta uu socday halgankaasi waxaa jiray halkudhigyo ay adeegsan jireen hogaamiyaashii beesha halkudhigyadaasi ay adeegsan jireenna waxaa ka mid ahaa reer Jannaad Waajid galeen iyo reer Jaxiimow iska jooga markii gumaystaha Talyaanigu uu ku guuleystay inuu ka soo dego deegaanka loo yaqaan Dhanaane ayna koonfur kala wareegeen dhulkii beeraha ayaa hogaamiyaashii beesha waxay isdhaafsadeen erayo taariikhda galay waxaana erayadaasi ka mid ahaa dhoobe dheefle waa dhuntii ayaa Dhanaana dhicinayo iyo dhalinyaradii dhameed Dhanaana dhicinayso intaad deeshiyo dhug beeshaan maad Dhanaana dhicine
dabayntaasi kadib gumaystihii Talyaaniga waxa uu suurta gashay beesha Biyamaal inuu kala jajabiyo dad isaga daacad u ah oo la shaqeeya magac jinsi iyo dhalasho intabana la wadaaga beesha Biyamaal waana halka ay ka timid ninaan kugu calo lahayn kugu cod maaha haddii aan u sii gudagalo taariikhda Biyamaal sidaan hore idinkugu sheegaba Biyamaal waa beelweyn ka tirsan qabiilada Soomaalida taasi oo juqraafi ahaan degta deegaana ku yaala Geeska Afrika Biyamaal waa beel ka mid ah beelaha loo yaqaano Dir kuwaasi oo dega koonfurta iyo galbeedka Soomaaliya beesha Biyamaal waa qabiilka kaliya ee dagaalka la galay Talyaanigii qabsaday koonfurta Soomaaliya haddii aan wax idinka baro deegaanada iyo gobollada ay beesha Biyamaal ka degto dhulka Soomaalida waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose gobolka Jubbada Hoose gobolka Jubbada Dhexe Itoobiyana waxay ka degtaa Qorraxi Jararti Doolow iyo Imey iyo deegaano kale oo badan dhanka Kenya waxay ka degtaa Bangal Qoofto iyo Tanarifa Shabeellada Hoosena waxay ka degaan magaalada caasimadda ah ee Marka Janaale Qoryooley Awdhiigle Waagedi Mushani Sablaale degmada Raaxoole ex lambar konton Baraawe Boolamareer Garweyne Ceel Wareego Moori Laanta Buuro Shalaambood iyo deegaano kale oo badan dhanka siyaasiyiinta beesha Biyamaal waxaa ka mid ah oo ugu caansan xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil xildhibaan Aamino xildhibaan Cabdulle Xuseen Cali Cabdiraxmaan Ibbi Cabdullaahi Cumar Abshirow Xuseen Cali Xaaji Sheekh Nuur Maxamed Xasan Maxamed Soomaali iyo Axmed Macalin Cumar Nadiir beesha Biyamaal waxay u kala baxdaa 4 jilibiyaadeerkood waxaana lagu kala magacaabaa Daadow Saacad Isniin Gaadsan iyo adeerka oo loo yaqaano Dafruube dhanka wariyaasha waxaa ka soo jeeda Macaawiye Mudday Faadma Cabdulqaadir Yuusuf Kaynaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Cabdiraxmaan Kambaala Maxamed Abuukar Dabaashe Faarax Ibraahim Yacquub Faadma Abuukar iyo qaar kale oo badan daawade guud ahaan intaan ayaan ku soo koobayaa taariikhdii beelweynta Biyamaal waxaan ka codsanayaa haddii ay jirto taariikh aad ka hayso beeshaan aan ka hadlayo inaad iigu reebto halka hoose ee commentiga si aan u saxno mar kale